بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. ودرسيني كسب سنة سيرة خلفاء الراشدين waxaana soo gaarnay caawa xalaqadii u dambeysay oo ku saabsan xalaqaadkii Amiirul Mu'miniin Umar bin Khattab radiyallahu anhu siiradiisa aan ka qaadanaynay. Waxaan ka soo baxnay futuuxaadkii islaamka uu faafayay iyo muxuu ahaa qaybihii ku saabsanaa khaasatan bilaadu Shaam, Baytul Maqdis, kadibna Masr. hawlahaas aan ka soo baxnay. waa inay marka hadee aan gabagabayno xalaqaadkan filay tantii lixaad inay tahay. waxa Amiirul Mu'miniin Umar bin Khattab radiyallahu anhu caado u ahayd sida Imam Bukhari warinayo gabadhiisa Xafsana ay ka warisay inay maqli jirtay aabaheed oo dhahaya Allahumma arzuqni shahadatan fi sabilika واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. كنت عايز انجري يا اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. إله يقول أرزاق شهيد نمو يعني في سبيلك دين هذا كوريريد دي هذا درتها إلا يديله شهادة واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. يا ماشي عن كل ما أنا لأن قفنا مو ماشي كل ما أنا يسمعها بلد الرسول كاجا مقالة المدينة له قديم. رواية waxaa ku soo arooray sugan in la yiri hada say isu qabanaysa ya Amiirul Mu'miniin lan meelaha lagu shahiidi jiray waxay ahayd meelaha dagaalada ka socdeen in Madiinana waxa weeyaan xaraman aamiin bay iska ahayd. markaas wuxuu dhihi jiray Ilaahay hadduu doono waxba kuma aha ya bal isaga markaa wuxuu dhihi jiray war ducadaydan say ku suuroobi doontaa kaas uu dhihi jiray Ilaahay waa suurta gelin karaa saas iskaga ducaysan jiray inuu qofku marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax weyn ka fisho kana bariyo حتى أسأل مركز ورتقال بيني أدو لا أهانينه وأرين صحوي وأنا أرين القرآن كلا جبرنا يو القرآن كوحكوا جرتا أنبياء الله سبحانه وتعالى كم بذا وحتى مركز واحد كده عايزنا ين لا شيء يجي حتى قاعدين كريوه سماه قال ربي أنا يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا يا إلى قال ربي اجعل لي آية مركز بريدي سويني ذو نوع أحد عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ساسو إلهي وقبل يجري ودعي سنجري تامر قوال لأغاية وعرين معروفة بهيدو دعاء عمر وقدعي سنجري رضي الله تعالى عنه وارضاه وحال سوق علي سنة كي صدح يلا باتنات هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دمات يسي بشا ذي الحجة أما عرف إنه وانو نقانو بشا ولا حجية وبشا محان كده هذا سنة كإسلام كان أقدم بيسويه بشا مركز سوق علي ولا حجية عمرنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه مسلمين إن ذا سير راعي جرتي أنت قول الله كلك إيمان يسيء مركا الله قدرنا وحيسوق إيمان جرين حج كأي يسوق إيمان جرين. سعيد بن المسيب وحورنا يا مركي لحجيي من الله تشوق دور بري وأكتهين ما يشاء من أيده اللي تشوقه أيوه عمر رضي الله عنه وأرضاه قوين ووتي أيوه مال قرورة حله يصاء وطورة وجوجلذي مركاسو وهبين قد عره ayuu maxaan ku ilaahdaa wuxuu u seexday dhabar markaasuu cirka fiiriyay dabcan de waa khalifiyo waa la ag joogaayo dadku way iska dugsanayaan markuu intuu gu'isii gugladay meesha iska banaanka ee mina waa taqaanaan say u taalo bacaadkaas ayuu kor yani maxaan ku ilaahdaa intuu dhacdid u seexday buu kor fiiriyay markaasuu maxaan ku dhahaa wuxuu kor u qaaday gacmihiisa isagoo dhahaya Allahumma kabirat sinni wa dha'fat quwwati وانتشرت رعيتي فاقبضني غير مضيع ولا مفرط. ساسو كدو عيسني رضي الله عنه وارضاه وحليه هي الله يو اللهم كبرت سني ان الهي ودأذيدي يعني ويناتي وضعفت قوتي يعني كرتدي اردكي خوغي قودين وسي ضعيفيسا وانتشرت رعيتي يا كلمه اي حجيه shacabkayga iyo raciyadaydiina way firidhayo way faaftay way ballaaratay faqbidni ghayra mudayyic ilaahu ii oofso xaqaaga ii qaado aanan waxba dayicin oo mas'uuliyadii iyo amaanadii aan dayicin
ولا مفرط أن قبض فلينو أن عندنا محان كنا حقيقي مركا أن كسو كدعين سيدا صوح مركو دعيستي رضي الله عنه وأرضاه طبعا دي مركا دعاء دي سهرنا واهيسين ماشان إيه وقت قال الدعيسان يانا واحد كيوا يا سمع سيدا صوح مركو دعيستي رضي الله عنه وأرضاه انت كدب dadkii goobjooga ahaa طبعا de way dareemi karayaan wallahi waa yani Umar waa soo aruuriyay hadda kolba diin wax ku falaya ma ahayne Madiina lagu soo noqday si nabad ah bishii oo wali dhamaanin laakiin dhadhow marka ay la soo gaaray magaalada Madiina la yimid waxyaabo kala soo kordhay oo runtii dareen yani muujinaya laakiin inta aan u gudbin qaybtaas waxaan rabaa inaan soo dhaxgeliyo كلمة أنا من هاي إيه العالية ما هي وانتشرت رعيتي عمر رضي الله عنه وأرضاه مالك هو كان كقبطي يا مالك كان إياه ولبوا تشيو كالدوم يعني دنيا مسلمكم مالك يسجل دورته واحد أكتهين حقا الشام وحل تشيوغي ودقال كالسعودي اليرموك تمام يعني حدود الشام دينا عن كلاء محانكو إلى هذا عراقنا هذا هو بكي مر لسه صباحي بقى محن قادزين ماشي لسه وقاعده هي إن جودها أنا وحنا مركل الدمية ولا صاف شري بدرد اللي ديه جري إن حروب الردة على صاف شري إن دولة دون مركز ضد اليد ونأكسن أو قوي كوا إيمان كوا ده هالجوجانه نقالة يو محن قد إذا ما بدنا ورسان يو واحد بدنا مركز ما يجرين سداس ومركز محن قد مركز ماشي يمد أي أحد لكن مالك عمر سعود عيساني رضي الله عنه وارضاه تضوق غضب وان شاء الله ينال حجسان ان شاء الله تعالى ان اي حقيقه قولك كوباد وحاوي وحازو شيء او بطاطا ما تاريخ ka baxday dawladii la dhigi jiray Faris Sasaniyan waa la yiraahdaa waxay talinayso boqortooyadaas jirtay 1000 sano in ka badan bay isdhaxlaysay waa majuusada caabuda waa nacab dadka ay weeraraysay burburinayso iyo kuwa iyada shacabka oo ay raacsan cid ay u roontahay lama arko nimanka Saasaniyiinta aqoonta khariban ay aaminsan yihiin oo ah ilaah baan waxaan ka nahay wakiil baan ka nahay qayb ilaahnimo anaga nagu dhex jirta marka boqortooyo marka noocaas ah oo intay dhulkan weyn ee hadda inagu aan u naqaano muxuu ahaa Asia qaybahan soo xiga maxaan qorda muslimka dawladahooda ku yaalaan intay soo dhaaftay baa waxay ka talinayso garanaysaan Yaman iyada haysatay badda u soo martay bay Yaman haysatay ka talinaysay dhinaca kalena de Arab dhan oo Ciraaq iyo dhulkan deganeed bay maxaan ku dhahnaa kor ka maamulayso meesha joogtay marka dawladdaasi bataatan taariikhda waa ka baxday oo caasimadeedii waa lagu dabaaldegay qodobka labaad ee hirgalay waxa weeye dawladdii Room ee weyneyd iyadana de maxaan ku dhaahdaa yani soo baawarka marka adduunka ka ahayd dawladana u dhigmaysay wali systemkeedii waa dhisan yahay laakiin waxa ku dhacay shrink يعني dib bay isu cuntay waxay luus garaysay oo ka baxday goboladii ugu muhiimsana sida bilaadu Sham iyo Masar iyo maxaan ku idhaahdaa inta ka agdhow de sumcadeedii iyo awoodeedii iyo farqaheedii iyo taageerayaasha wixii dhoon dib ay isugu aruureen waxay dib isugu guratay badaha oo marka iyagu ay maxaan ku dhahaysteen iyo caasimadoodii oo marka Constantinople marka uu fariistay boqorkii Heraql kolkii dambe uu ku dhintay sidii aan darsigii hore aan ku sheegnay dawladana marka dib ay u guratay qodobka saddexaad labadaas uu ka dhalanaya waxa weeye dagaal bani aadam badan galaaftay shucuubta gobolka degan yani maxaan ku dhahay weylaad ay ka dhaxleen ayaa ka dhex ognaan jiray labadan dawladood bataata dagaalkaas meeshu ka baxay yani taariikh ahaan dagaalkii Room iyo Faris goormu istaagay wuxuu istaagay waqtigii Umar ibn Khattab radiyallahu anhu warda labada dawladood way bazuushay bataatan tii kalena waxa danteeda u run sheegtay halka marka waxa soo afjarmay oo soo istaagay yani muxuu dagaalkii ciyaarta ahaa ee ka dhaxeeyay oo ahayd ana ka xoog badan ana ka dhulweyn baa la isku haystay ninna uma dareyneen la shacab kuwa uu askarta ka dhiganayo walaa kuwan uu qabsanayo midkoodna uma wadin maxaan ku idhaahdaa wax maslaxa iyo wax manhaj midna mid walba wuxuu ana halka ka taliya ayuu yani ku haystay taana way soo afjarantay meesha ka baxday qodobka afraad waxa weeye waxa soo daahirtay oo يعني أدوك كوسو بيرتي دولة عالمية يا دولة حصاب حضي إن عالمية معها دولة قبل شوكتا معها دولة قبيل أما قيس أما يعني جنسي أولي معها ودولة عالمية أصلا مركا أنا كسوب حضي أدونك مركا يشري برتمي هيسا طبعا أدونك مركا يشري واتقرن إنسان قاردها يشري وحي هايين
Asia Africa iyo Europe intaas la hayay qaaradahan kale ee labadan Mareykan yani waqooyiga Mareykanka iyo koonfurta Mareykanka America aan u jeedaa iyo Australia waxaan shalay dhasheen lama hayo waqtigaas bani aadamku la yaqaan dhulku degaan saddex qaaradood bay ahayn Asia iyo maxaan ku raahdaa Africa iyo Europe bartamaheeda marka waxa ku taara dhulkan loo bixiyay hadda bariga dhexe baa ku yaala dawladdu marka halkaas ay ka samaysantay saddexda qaaradood marka way laacdaa xaggana Europe bay afka u taagan tahay Africana de waa watan waqooyigeeda soo gashaan sheegayay xaggana xuduudda China hadda dhulka inagu u naqaano ayay maxaan ku dhahay joogtaa marka dawlad aad yani maxaan ku raahdaa u balaaran oo caalami ah oo ummadaha maxaan ku raahdaa ay xukunto يعني محو أها wax badan ayna wadaagin ayaa meesha ka soo baxday qodobka shanaad waxa weeye dawladdan soo baxday yani shacabkeeda ha ahaadaan waxa soo baxday ummad yani dawladdu waa sultada yani laakiin waxa soo baxday ummad xadaarad wadata xadaarada ay wadato mid bani aadan alifay ama dhisay ama isku dardaray ma aha waa ilbaxnimo iyo xadaarad iyo caqiido iyo amal iyo akhlaaq xaq Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga yimid waa isu dheelitiran tahay isla markaana waxa weeye waa meel walba waa ka toosan tahay ummadda marka ee dawladeeda hadda aan ka sheekeynay waxa xubno ka ah ummadaha adduunka ku nool oo dhan qaar madow qaar cadcad qaar indhayar qaar indho waaweyn yani waxa kada ummadaas yani maxaan ku iraahdaa bay midaysaa marka Room ma aha Farisna ma aha Arabna ma aha Afrikaanna ma aha kulli way waas wada taay wax dhan bay wada hogaaminaysaa yaa u aha qaanuun dawladdaas yani xadaarada waxa matalaya yani kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo cadaaladda ee rabbaaniga ah ba manhaj ah waana yani xadaaradu meesha ka hagaagto waa waxa yani asaaska u ah Soomaa qodobka lixaad waxa weeye oo soo daahiray hogaamiyayaal casri ah ya hogaamiyayaal casri shacab islaami wuxuu leeyahay qiyaadaat lam ta'halha hadha al-bashariyya wa hogaamiyayaal iyo qiyaada bani aadamku hore ayna u aqoonin baa soo baxay laba sifaan yani uu leeyahay yani bani aadamku ma aynan aqoonin mid koowaad waxa weeye dadkan madaxda ah ama gobolaha xukumaan ama ciidamaha xukumaan aad u xoog badan ama kuwa guud ee wax xukumaaya Madiina fadhiya han noqdaan qaanuunka shucuubtooda qabta iyagana qabta yani wuxuu islaamku meesha ka saaray bataatan kala sareyntii dawladaha adduunka waaga ka jiray waxa labadaba isku mid ka ahaayeen boqorrada iyo ilmahooda iyo kuwa ka agdhow iyo kuwa awoodda haya waxa weeyaan waa above the law waxaan ay dhahan Mareykanku maxaan ku dhahan no one is above the law barnaamijka isaga ayaa keenay oo hirgeliyo tabaqay yani waa tarbiyadii nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabada madaxda marka wax xukumaysa iyo hogaamiyayaashan iyo qofka shacabka meesha maray waa u siman yihiin qaanuunkan isaga ah intii kan qabata kana qabata inta kan laga rabaa hadduu xoolo leeyahay kan madaxda ah zaku bixin kan shacabkaana wuu bixin hadduu idab darro sameeyo kanna waa la ciqaabi shan salaadood iyo xaj iyo soom iyo waajib ku ah kanna intaas waajib ku ah hadduu dhinto kan laba goob cad baa lagu duuduubi kan laba goob cad baa lagu duuduubi ummadda iyo marka qiyaadadu waxa weeyaan waa isku qaanuun oo waa isku xeer lama aqoonin qodobka isaga inuu suurtagal yahay xataa lama maleyn jirin hada waahid ولذلك ummadaha islaamku u tagay marka islaamka yani darsaan oo arkaan kolka hore intay jizaan bixinayna dhahaan bay duru muslimi jireen hay'ala taaliimtaana waxay ka dhigi jirtay waxa Allah wax bani aadan soo alifin Soomaa mid labaad maxaan ku dhahaa qiyaadadani ay leedahay waxa weeye hal qoys ma ah hal qolo ma ah hal midab ma ah waa hogaamiyayaal iyo maxaan ku dhahaa qiyaadaad yani cirqiyada iyo maxaan ku dhahaa jinsiyada adduunka joogo dhan bay ka kooban yihiin waa kuwa midmadow waa kuwa cadcad waa kuwa cascas waa kuwa wahakada ya ولذلك baan wax badan taariikh yani marka ay akhradaan jiyuushta muslimiinta ay rag hogaamin jiray iyo bahad arki doontaan ya والله المستعان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه hogaankan marka aan hadda tilmaamayno ee casriga ay cajiibka abu u yahay tusaale u yahay aqoonta cabsida daacadnimada iyo umatala laakiin dadka ka hoos shaqeeya dawladda weyn kala xukumaya qolo kasta ayay leeyihiin oo marka maxaan kula meesha saasay wax maamulayaan ya qodobkaana marka waa qodob soo kordhay weeye waxaan arki doonaa hadii la yiraahdo nin yani hogaamiyaasha weyn ee muslimiinta ka mid noqday gaar ahaan ciidamada iyo futuuxaadka markii dambana meel xukumi jiray waxa la yiraahdaa Habib ibn Maslama al-Bahili qoyskan uu ka dhashay baahiliyiinta la yiraahdo
إن عربت dhexdooda waxay ka ahaayeen sida qoysaska Soomaalidu ayna ka guursanin ay tagooraan oo kale ka ahaayeen markay wax tusaaleynayaan baa waxay dhihi jireen hebela ama arintaas adcafu min baahila taasay dhihi jireen waa kali taa qoyskaas iyaga taasay dhihi jireen ilaahay wuxuu qadaray inay dadka iyaga ka soo dhaxbaxaan dad maxaan ku dhaamo taqaanay ummadda in hogaaminay inay ka soo dhaxbaxaan yaa ilaahay qadaray hogaamiyaasha marka waa soo daahireen waxaana la bini aadamka la tusay dadku inay nin walba hogaan ka soo bixi karo qola gaar u laho iyagu maxaan ku dhaabo boqorro oo isdaldalay oo laga dambeeyo soo kala inay jirin qodobka toddobaad ee maxaan ku dhaabo ugu dambeeyay qaybtan waxa weeye waxa practical dadku u arkeen dabaqida shariicada ilaahay yani kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo sunnada nabiga oo nolosha lagu dabaqo barakadeeda baa dunida inta la eg laga arkay markaas amniga iyo barwaaqada iyo barakada iyo maxaan ku dhaamo taqaanay ladnaanta baa nin walba gurigiisa ugu tagtay ya ilaa aan ka sheekaynay yani khaliifatul muslimiinku inuu dadka dhexdooda iska seexan jiray masaajidka iska seexan jiray laga soo heli jiray ya soo garanaysaan markii ummaddu iyadu ay toosto oo maxaan ku dhahay cadaaladda ku dadaasho iyaduna way kala nabad geli wixii yani ila darna way iska celini marka waxa weeyaan barakada yani ku dhaqanka shariicada ilaahay iyo kitaabka ilaahay ayaa loo arkay si caadi ah loo arkay ilaa aan ka sheekaynayna welfare-kii Umar uu bixin jiray iyo maxaan ku dhahay ma taqaanay ummadda idil nin walba inuu soo doonan jiray risqigiisa ilaa dad badan yani ay diidaan oo dhahaan yani uma baahnino anagu ma doonayno sida Hakim ibn Hizaam kala garanaysaan Umar dhihi jiray makhraati ka ahaada xoolihii ilaahay siiyay inuu ninkaas igu diiday ummaday makhraati ka ahaada isna uu jawaarudii Umar anaa ku diiday uma baahni sababtoo nabi Muhammad ballan la galay inaan bini aadam waxba ka qaadanin saas oo dhihi jiray Sooma arrimahaas marka yaa jiro oo meesha yaala marka Umar marka radiyallahu anhu ardaa uu leeyahay ilaahu raciyadaydi way faaftay waa runtii soo xaqiiqo ma aha raciyadaas yada Umar waxa walbahaar ku haya يعني جمعة كوباد ay soo gashay jumcadaas culimada taariikhdu waxay leeyihiin waxay ku aadanayd 22ka bisha Arafo ama bisha Dhulhijja 22keedii ayay ku aadanayd xajku goormu soo dhamaadaa xajul akbar waa 10ka saddex berina waxa la joogaa mina la joogo saddex berina saddexda beri laba laazim ah mid kale waa laga iskaga tagi karaa marka 13 beri haday xajka yani ku dhamaado maalinta 14 waa la soo yaacay marka jumcadii koowaad waxay ku aadanayd 22ka Dhulhijja sanadka ay hijraduna waa 23 way sanadka isaga marka sanadkaas waa dhamaanaya sida aad dareemaysaan Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ardaa minbarka khudbada ayuu fuulay isagoo xaj ka yimid oo la sugayo khudbadiisa dadkii sii joogay magaalada iyo kuwii isaga yani xaga ka soo raacayba khudbada si fiican yani maxaa loo dhageysanayo khudbada Umarna de khudba qiimo gal ah bay ahayd oo wacdi leh oo tacliin leh oo talo leh oo maxaan ku dhaamo taqaanaay way ahayd khudbadii Umar markuu minbarka fuulay radiyallahu anhu ardaa wuxuu ku khudbeeyay inni ra'aytu ru'ya ya riwayo markaan soo noqday waan riyooday wuxuu yiri la araha illa hudur ajali riyada asaga fasiraya ya riyada hebel oo fasiray waxa la dhihi jiray Soomaa wax kale kuma fasireen riyada waxaan ku fasiray ajashaydii inay maxaan ku iska xaadir tahay wuxuu marka ku riyooday waa kana ra'aytu kaanna diikan naqarani naqratayni diiq ama digaaga midkiisa lab baa soo orday markuu soo ordayna wuxuu u kawiyay afkiisan dheer ayuu igu kawiyay laba goor riwaayada qaarkood ama saddex uu igu kawiyay igu garaacay Umar wuxuu yiri radiyallahu anhu wax kale kuma fasirine mawdkii aan ku fasiray wa inna qauman ya'murunani an astakhlif dadkii aan u sheegay oo riyadaas aan niman iyo aragtaas aan u malayn idina war waxay ugu bilaabeen aha cidi ku bedel lahayd magacaw saasay markaa maxaan ku leeyihiin wa inna allaha lam yakun yudayya diinahu ilaahi diinkiisa mid dayacaya ma uu aha wala khilaafatuhu yani khilaafadana ma dayacaya rabbi subhanahu wa ta'ala la walladhi ba'atha ولا الذي بعث به نبيه متكون وحو نبي صلى الله عليه وسلم إلهي ما ضيعه سبحانه وتعالى كدبنا وحو محان كنا متقنا قدر إن يرى إن شاء الله تعالى أن قدر دونه يعني قدر بدر صوص صعدة أرنتا مركز ضدك وحي كده أبورتي رنتي صوص يعبسي يورنيه هو دعادي سيا مركز على شيء وكوي إنه دعاء سنة يوجانا وحده أنا حتى وحان مقرن نسوي دعاء سنة يو سدا سامرك محان كنا نوع درين ayaa la qaaday laakiin hadii xaqiiqo laga iman doona admiya taqaan meesha laga iman doona meel la maleeyniba ay xaqiiqo iman doonaan Amr bin Maymun in la yiraahdo oo yaani muxuu ahaa saxaabi ma Amr bin Maymun waa mukhadrim bimaana waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam dacwada gudanayay yani wuu joogay laakiin muuna muslimiin
markuu nabigu dhintay sallallahu alayhi wa sallam ka bacdi ayuu muslimay marka taabiciinta saful awwalkooda ayaa lagu tiriyaa Amr ibn Maymun marka uu xadiiska Bukhari ku yaala wuxuu leeyahay inni laqa'imun ma bayni wa baynahu illa Abdullah ibn Abbas ghadata usiba subax Umar radiyallahu anhu wardaah la diri doono wuxuu yiri salaada subax baa loo taagnaa meeshu isagu taagan yahay oo mihraabka ah iyo aanu meeshan taaganahayna qofka kaliya loo dhixiyay wuxuu ahaa Abdullah ibn Abbas marka waxaan dhihi karnaa Maymun ibn Mihran wuxuu taagan yahay safka labaad safka ka horeeya meesha isaga Umar ku beeganna waxa taagan oo ku jira Abdullah ibn Abbas baa ku jira marka wuxuu ninka kaliya baaniyo Umar loo dhixiyay wuxuu yiri wa kana idha marra bayna as-saffayn qala istawu Umar waxa caadi u ahayd markii salaada la aqimo sufuufta intuu dhex maro qaybahooda hore inuu yiraahdo istawu sida sunnadu tahay waa saas ah dadka in la yiraahdo istawu afka laga dhaho la amro lana fiiriyo sufuuftu inay hagaagsan tahay laakiin imaamku inuu sii jeedsado mihraabka intuu istaago oo dhagaha duubto ninka aqimaha ya la ilaaha illa allah allahu akbar imaamka ku xigta waa sunnada ma asaas sunnadu waxa weeye in la aqimo imaamku dadka fiiriyo dadka safka hagaajiya dhaho nabigu sallallahu alayhi wasallam waa ka dardaarmi jiray bal khudbu marjeediyayba asagoo saas loo taagan yahay oo safkooda hagaajinaysaan hadii kale qulubtiina la iskhilaafsiinaya saas wuxuu Umar dhihi jiray radiyallahu ta'ala anhu warda wuxuu yiri ninkii la dhihi jiray Amr ibn Maymun taqaddama fakabbara يعني وهرم مركز صفته هجاجية أيضا كهرم رجلي وتكبير زنجري وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى ركعة ظهر عمر وديرينجري رضي الله عنه وارضاه وحنا يروحوا آخري جري سورة يوسف أما سورة النحل أما كو النوع عاصو كلا بسم الله الرحمن الرحيم يعني نقعد هذا الآخرية تاريخ بين نقول الله يعني هم قاعدين قرنا إنسان صلاة هوري بلو جري جري qoliyaha marka madaahibta qaar kood salaada aad u daahiya iftiinka keena waxaad garan inay sax ahayn sababtoo hadii waqtiga inta la galo Yusuf la akhriyo qorxay soo baxaysa Soomaa wali hal ragcad lagu akhriyo yani Nahl iyo Yusuf aad bay isugu dhow yihiin xagga dhererka beejajka mushafka inagu aan isticmaalyoga mushaf bayna haysanin quraanka si u yaqaanay bay ku tusaysaa isagoo boga uu ka tirsada muuna haysanin laakiin qiyaasta wuxuu garanayaa suuradahan inay iska ag dhow yihiin suurada Yusuf iyo suurada Nahl mid waliba xisb way ka badan tahay mid walba waa juz ربع كم قيمة تقريبا سواء سيداسو مركب محان كو إلى هذا يوحول يؤخري جري رقعة سيادة وحصوت معي حتى يجتمع الناس dadku si ay ugu soo gaaraan ilaa waagaas laba arrimood aad inoo caawinay midna ma jirin mikrafoon weyn oo inta la aadaamo sida Afrika aad uga jirtay dhulka muslimka laga maqlayo aadaanka iyo aqimka oo dadka baraarujinaya lama haysanin afkan ba laga aadaami jiray laga aqimi jiray mid labaadna waxay saacada hadda inagu saacadaan haysanaayo salaada waqtiga la gali dadku way yaqaanaan saacadana way haystaa inay ka sii yeelayaan moogi waqti way ku iman karaan way ka soo mari karaan laakiin waagaas saacadii ma jirin qiyaas ba wax lagu wadaa mikrafoon codka ku keenana ma haysid imaamku marka wuxuu dheereyn jiray marka salaada waana sida maxaan ku dhahay loo baahan yahay oo dad waxa jira quraanka ka baran jiray dhageysiga aimada maxaan ku dhahay dhageysanayaan ama ka saxan jiray dadku hadda way dhaga beeleen dad waxa arkay imaam ku daba tukanayay muddo Ilaahay og yahay subhanahu wa ta'ala hadii suuradaha kala la dhaho imaamku mid buu akhriyaayo anu ma haleelayo suurad waxa jirta ragcad walba imaamku akhriyo waa suuratul Faatiha dadka hadii double Faatihada akhri wax yaab la muuqata wax la yaab la buka kici war faatixada hadaa hataa macallinku dhigin imaamka shalay akhriyay ee maanta akhriyay ee maqribkii akhriyay sumaada maqlaynin ma dhageysatid sidoo dhahay ma dhahdi marka thaqaafadii ahayd in dhageysiga wax lagu xafido batatan yani waa yani Allah saalo laakiin wax tusana danayn la'aan haday danaynayaan way keeni lahaayeen ingiriisiga way dhageysanayaan kuwa sida Mareykanka wax hadlaay wuxuu yiri marka maalintan iyada ah ee marka maxaan ku ilaahdaa Umar radiyallahu anhu ardaa uu malgan yahay wuxuu markuu dadkii sida u kala hagaajiyay fama huwa illa an kabbara inuu takbiir saday baa jirtay oo Allah akbar uu yiri fasami'tuhu yaqulu qatalani aw akalani kalb warwa'i dilay warwa'i cunay aygu isagoo saalih ayaan wuxuu maqlay waa mugdi masaajidku tabcan ad garan kartaan waaga halkan waxan ma jirin waana salaad subax goor hore marka masaajidku waa mugdi marka warwa'i dilaydaas ayaan maqlay inta wuxuu markii aan maqlay وحول فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه قال كاني من دي وحصوص ما يستي لا طرف له بمعنى أنه حنا قنا من دي ضاب بيلاده صوما بتورده ضاب مركا يلاده هاي أنت المامة ضابكو يعني من دي الضاب كده سنة الوقت
انت انا waa mindidi ama toorida laba nafka kule xaqana waa la qabsadaa Soomaa midan iyada waxa weeyaan dhexdu haystaa xaqaana marka waxa weeyaan waa toori xiiraysa xaqaana way xiiraysa anagu aad ma naqaano noocaas hal dhinac baa ilaa laakiin dhexdu saa u hayaa dhankaana af bay ku leedahay wax bay ku dilaysaa dhankaana af bay ku leedahay markuu Umar meel ku hubsaday 6 goor buu ku dhuftay ayuu maxaan ku ilaahdaa dadkii safka ku jiray buu la dhaxqaaday xaqana waa u tuuraya xaqana waa u tuuraya markuu tuurabana dad buu maxaan ku dhahaa dooxaya oo ku dilaya wuxuu yiri marka Umar al-Maun hatta ta'ana 13 rajulan maata minhum 7 iyo 10 nin oo kale muslimiinta kamida oo yaani mid uu gooni u maagana una jirin ayuu maxaan ku dhahay toori tiimbiyay ama jirsiyay 7 kamida sida Umar bay maxaan ku la dhiman doonaan laakiin markaas dhaawac bay intooda badan ahaayeen ninkii marka uu basiir bixi rabaaba masaajidku intuu la dhax qaaday oo intuu dari karay daray bahashay oo yaani buu baxsan rabaaba ninkii dadkii marka ka eg dhawaarinta arkayay daba yaacay oo umada dadka dhamaaday ninba marka wuxuu arkay inuu ninkani maxaan ku ilaahdaa baxsan rababa ilaahay marka wuxuu waafajiyay busto weyn oo uu huwanaa dhaxani malaha waxba jiray busto weyn oo uu huwanaabu maxaan ku dhaaman taqanay gab ku siiyay markaas uu isku la qabtay يا فلما راى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا وبستحس وحول فلما ظن العلج انه ماخوذ نحر نفسه markuu arkay in la qabtay oo uu nasdaqaadi karo mudidii laga qabtay ayuu isdooxayo isqowracay isagiina oo tuuridii maxaan ku dhahay isku dilay saasoo marka maxaan ku dhaamata arintaas u dhacday wuxuu leeyahay marka xadiiska sii socday وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فتقدمه للصلاه بالناس عمر waxaas isagoo ku yaalo radiyallahu anhu wuxuu laacay oo safka yaani ku xiga ku jiray Cabdulrahman ibn Auf uu soo jiiday oo mixraabka keenay si uu dadka u tukiyo Umarna marka waa dhacay isagoo maxaan ku dhahay meel walba dhiigiisu uu ka burqanayo wuxuu yiri faman yari Umara faqad ra'a alladhi ara cindi Umar ku xigtay wuxuu yiri waxaan arkayo way arkayeen wa amma nawahil masjid masaajidka daafihiisa iyo hareerihiisa soo ma aha faynhum la yadruuna waxa dhacaya warka ma qabaan ku ilaa naftiin ma jiree ghayra annahum qad faqadu sawta Umara لكن عدكي عمر صلاه باللاوي ما سي سعنينه ولا واي عمرنا عدكيسو عود قريه ما ahayn oo dadku qaldami kara wuxuu fasalla bihim Abdurrahman salatan khafifatan salaada subax wala gaabiyo wala boobsiyeyo Abdurrahman Auf baa boobsiyay sidii marka salaadii lagu tukaday hadii salaadii assalaamu alaykum la yirina tay waxa bilaabatay dhaawicii iyo dhiigii iyo aadi iyo yani argagixii masaajidka ka dhacay dadkii waxay noqotay in la qaado yaa nool yaa dhintay kan qaad kan dhig waxaas marka maxaan ku meesha ka dhacay laakiin uu markuu iftiinkiina soo galay dadkii maxaan ku ilaahdaa meesha daad sanaayo kii isaga isdilay qudhiisa kamid yahayna waxay noqotay in dhaawicii la qaado Umar radiyallahu anhu ardaahu yar doorsoomay oo miirku uu ka tagay kadibna soo weyn baa gurigiisa la geeyay goor damba Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo celiyay miirkiisi markaas wuxuu war salaadii miyaan tukaday inuu tukado isku dayay oo kaco yaani kadibna markuu kacaba yaani muxuu ahaa caloosha qayb kamid ah hoos u fakanaysay oo waa miirka ka tagayay adigu maxaan ku ilaahdaa sidaas Umar gurigiisa lagu geeyay radiyallahu ta'ala anhu arda markuu waagu bariyay dhaawacii iyo meydkii wixii la kala aruuriyay ayaa loo yeedhay wixii caafimaadka wax ka garanayay dhaqaatiir meesha joogtay ayaa la keenay kadibna waxa la qiimeeyay xaalkiisa nin marka khabiir ahaayo ayaa yimid kadibna wuxuu cabsiiyay cabitaan nabiga ay dhihi jireen oo ah biyo timir lagu qooyay kadibna waxay ka qulquleen halka xudunta hoosteeda ah oo nabar adag uu kaga yeelay garabka iyo feedhaha iyo kelida iyo xudunta hoosteeda halkaas oo nabar ka galiyay marka xudunta hoosteeda ka qulqulay bahalkii kadibna wuxuu yiri kan aad loo garan maayo dhiig iyo waxba ku maraan caanaha la keeno caanaha loo keenay caanihii buu yiri qurquri caanaha markuu qurquriyay baa shuru halkaas ka dareereen yaani maxaan ku dhahay kelida iyo xudunta agteedii halkaas ka dareereen kadibna wuxuu ninkani waa tagay markii ay arkeen caaniyo soo dareeray ayay wuxuu faalimu annahu mayyit Umar inuu dhintay ayay sida ku ogaadeen kadibna waxay yiraahdeen istakhlif ya amir almu'minin wa Allah ku naxariistay ummadan cidii ku bedeli lahayd u khaliife sidii maxaan ku dhahaa Abu Bakr uu sameeyay baa iyaga marka la quruxsano maxaa yeelay way mahadiyeen Soomaa way mahadiyeen xasanaadka Abu Bakr radiyallahu anhu warda waxa kamida inuu maxaan ku dhahaa ma taqaanaayay u nasteexiyay ummadda Muhammadiyada markuu Umar yiri kaas ka dhigta marka sidoo kale isagana ka rabeeno marka waxay dhaheen dardaaran ya amir almu'minin isaguna marka Umar radiyallahu anhu warda inuu dhinto kama walba haarsaneen sababtoo ah waxyaalo badan oo islaam isku hagaagi doonto ayaa isku hagaagay laakiin xogaa qadiyada waxa jira walwal ku hayo aanu kala cadayn marka miyirsadayba
wuxuu u yeeray Abdullah ibn Abbas oo goobta taagnaa wuxuu yiri kaale Abdullah ibn Abbas oo undur mar qatalani ninka idilay yani iso fiiri yani Umar waa weydiiyay dadka idilay buu laakiin isagoon baa loo walba harsanay waxba markaa looma sheegin ibn Abbas wuxuu yiri iso hel ninka idilay gacantiisa aan ku baxay niyo maxaan ku dhamataqnay warkiisa ayay keenay ibn Abbas waa tagay radiyallahu anhu warda muddo maqnaa markuu soo hubsadayna waa soo noqday markaas wuxuu ku yiri أبو لؤلؤة غلام المغيرة ابن شعبة ابن عباس يقول وكان مجوسيا قال يقول أن المجوسي هو تذكر لقى سوق فاشي فارس مكل الشبيهي أيوه كم ذا ننفر سما يقان وبرها الطماء يباه كان رجيك اللي يقول شيء نجح شيء اللي ده هذا أيوه سمين جرو خطركوا مغيرة ابن شعبة بعلها إن نمرك معاهم كنا مجوسي وإنه ما قاعد يسنا فيروز بل ليه شيء لكن هو عانكوها أبو لؤلؤة markuu Umar diray kadibna Abu Lu'lu'at al-Majusi saasa la yiri Majusi gaasa loogu daray maadaama Majusnimada ku dhinto waliba isagu isdilay Umar radiyallahu anhu warda markii la yiri Ghulaam al-Mughira ayaa wuxuu as-sana masana yaqaankii qaal nacam ha ka weeyay buu yiri Amiirul Mu'miniin Umar radiyallahu anhu warda wuxuu yiri hadalkii ku xigay wuxuu ahaa qaatalahu Allah laqad amartu bihi ma'rufan naalad Allah ku dhacdo ma'ruf baan farayo maan loo daan u nasteexiyayo aan tala wanaagsan ayaan siiyay تلو ونكسن أيانسي الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام إلهي باسم مهدسن إلهي با مهدسن آن محانكو إلى هذا جيريدي إذا كدغين غعان نين إسلامي ما شيغانيا يا نين إسلامي ما شيغانيا غعانتيس إلهي نيغو ملغين أيا مهدسن رواية كلا سو سوتا إن يعني عمر وحام موقتا نينك مسلمada sheeganaya haduu Umar dilo waa qaatil Sooma waxa dhacaysa marka in de maxaan ku dhahaa uu naar ku galo dilidu Umar dilay haduu marka maxaan ku dhahaa ma taqaanay zaalim yahay naarta Umar waa baaya haduu Umar dulmiyayna ayadana maxaan ku maba dhicina waa hawl kale marka intii la isweydiin lahaa Umar wuxuu yiri Ilaah baa mahadsan nin islaamnimo inuu yahay iska dhaafay hatta sheeganaya aan gacantayda maxaan ku dhahaa gacantiisa aan ugu bixinin ibn Shihab riwaayadiisa wuxuu leeyahay Umar wuxuu yiri alhamdulillahi alladhi lam yaj'al qatili yuhajjuni 'inda Allah bi sajdatin sajadaha lahu qattu إلهي ما هله أن كدغين محان كدها midka gacantiisa yaani aan ku baxay mid ila doodi doona alla agtiisa sujuud waligi Ilaahay uu sujuuday aan wala doodi doonin Ilaahu aan ku sujuuday yaani muslim baan ahay uu dhahayn ya marka shahiidnimadii uu raadinayay uu hubinaya marka inuu maxaan ku dhahay gacan cadow ku baxay waxa kaliya isaga ninka ka dhaxayana uu yahay Umar yaani maxaan ku dhahay islaamnimadiisa iyo inuu macruuf faray loo dilay maxaan ku dhahay ma taqaanay kaliya sidaas Umar yaani maxaan ku dhahay taqaan Umar uu hubsaday inuu horta shahiid yahay oo gacan cadow uu ku baxay qodobka labaad ee Umar radiyallahu anhu wardaa yaani walwilay wuxuu ahaa deyn ku qornay ninka umada intaas oo hanti u taalo u talinaya diiwa buuxlay buug gaara oo dadka u yimaada iyo martidiisa iyo hawshiisa markuu yaani wax siiyo qarash u qaado waa qoraa waa isku qoraa maxaan ku dhahay lacagtaas iyo deyntaas iyada waa isku qoraa kadibna wuxuu u yeedhay wiilkiisii markaas wuxuu yiri ya Abdullah ibn Umar unzur ma alayya min ad-dayn buugay xisaabiyo deynta la igu leeyahay isoo yaani total garee sida ayuu ku yiri waa soo xisaabiyeen waxay soo heleen marka 86,000 kun oo lacagta waaga la isticmaali jiray dirham iyo diinaar midka ay ahaydba lacag aad u badan ayay ahayd lacagtaas ayaa maxaan ku dhahaa laga soo helay lacagtaas ku qoran baa la yiri Umar waa ogaynaysaa u badan tahay wuxuu yiri marka dardaarankiisu waa kana in wafa lahu maalu ali Umar fa addihi min amwalihi reer Umar ibn Khattab radiyallahu anhu arda xoolahooda waxay xoolaha haystaan dad su geysaan xoolo laga dhaxal warkeeda daa xortiisu qaybsato oo ay ka faa'iidaan laakiin maxaa weeye xoolo wixii la hayo la isu geeyo deynka isaga wuxuu yiri Umar ha lagu bixiyo wa illa hadad ku filaan weydaan oo xoolo idinku bataan fasal fi bani Adi ibn Ka'b qoyska ay ka dhasheen reer Khattab reer Umar al-Khattab ee Quraysh ka yihiin waxa la ibn Adi ibn Ka'b qoyska iyaga intaad u yeedho ninkii idinku idin ka dhashay deyntaana lagu leeyahay dhaxdig deyntaas iyadaana ha laga bixiyo fa in lam tafi amwaaluhum banu Adi ibn Ka'b haday ka waran xoolahooda ku filaan waayaan deynkaas iyaga Umar wuxuu yiri fasal fi Quraysh ya Quraysh ba ka dhasheen Soomaa Quraysh u yeedho hada war Umar xoolaha ha laga bixiyo wuxuu yiri wala ta'duhum ila ghayrihim cid aan iyaga ahayn ha u talaabin ya wuxuu yiri fa addi anni hada al-maala Umar radiyallahu anhu warda muxuu ka taxadarayaa wuxuu isagu markii horeba sameyn karay laakiin una sameeynin in la sameeyo ka taxadaraya
هانتدن بوحده بيت المال كتالا انتو قادو انو maxaan ku dhahaa uu dadka siimuuna sameeyay uu isku qoray maanta markuu dhintay in la dhaho Umar umadu u talinayay xoolaha dad muslimiin oo kulay u qaaday ka bixiyo bangiga walaw sharcan ay banaan tahay ay banaan tahay haddana laakiin taxadarkiisa iyo ilaalintiisu sidaas ay ahayd xoolahan iyaga ah yaani halka hal mariyo oo sida deynka isaga laga bixiyo taa waa ka dardaarmay radiyallahu ta'ala anhu warda qodobka saddexaad walaalka ku hayay ayaa loo gudbay وحاول عبد الله بن عمر كسون نقضي بقى يقول انطلق إلى عائشة أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين أتك وحد نقول هذا يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا عائشة أتقوه وحاتر هذا وكسلامي عمر بن الخطاب حقهن أمير المؤمنين بقى سلامي حقهن ما أنت عد مؤمنين أمير أميه يا وحد نقول هذا يستأذن عمر بن الخطاب أن يبقى مع صاحبيه عمر بن الخطاب wuxuu weydiisanaya ka codsanaya labadiisii saaxiib macooda in la yeelo oo guriga lagu aaso taas Umar weydiisanaya u sheeg Aisha radiyallahu ta'ala anha Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wardah waayib wala og yahay Aisha dad kale oo Umar ka horeeyay ba ka bariyay meeshan laakiin waxay tiri meesha guriga waxa ka banaan in uu hal qabri laga qodi karayo meeshaana waxay tiri naftayda ayaan ugu talagalay marka maxaan ku dhamaa taqaana cid kale ugu been sheegi maayo warkaas yaani war laga hayay waa muuminiin marka uu yimid ibn Umar waa idan dalbaday kadibna waa salaamay waa soo galay wuxuu yiri fa wajadaha qaa'idatan tabki iyadoo guriga dhex joogto oo in dhamaysatay ayaan wuxuu yiri meeshii ugu imid markaas wuxuu intii buu ku yiri laakiin wuxuu yiri yaqra'u alayki Umar ibn al-Khattab as-salama wa yasta'dinu an yudfana ma'a saahibihi ina Khattab Umar ayaa ku weydiisanay ku salaamaya kadibna nabi saaxiibna la aaso ayuu ku weydiisan dadaarkii weeye عائشة رضي الله عنها واحد كنت أريده لنفسي ماشي نفتيدا أيام أقر شيء سنة يوم وترجلي ولا أوثرنه به اليوم على نفسي نفتيدا وان كقاضي ما أنت وحنا أرحلني عمر بن أحلن هذا ما عدت جزء زي هي عمر بن أرحلني نفتيدا وان كقاضي يعني مرة واحد جرته النفط هذا يعني أي جلال مريض إنسان سيد المؤمنين رضي الله تعالى عنه وارضاه عبد الله بن عمر سو aad faraxsan degdegayana ayuu soo noqday ogaashaha uu ogyahay Umar arintan yaani kurbada ay ku haysa iyo meesha kaga taalo markuu soo galay baa Umar waaka Abdullah ibn Umar waakan wuxuu toosiye ma fadhiisan kareenin nin baa laabta sida maxaan ku dhamaa taqaanaayay u saaray oo kor soo toosiyay markaas wuxuu yiri ma ladayka alladhi tuhibbu ya amir almu'minin adinat wa kun fasaxday sida jacashay xaaladii noqotay wuxuu yiri alhamdulillah ma kana min shay'in ahamma ilayya min dhalik arrin iga murug badan iguma taagnayn arintaas iyada ah labadii saaxiib inaan maxaan ku dhahay daris la noqdo wuxuu marka faa'iida ana qadaytu fahmilni rasuulullah Allah hadii aan yaani naftu iga baxdo ixambaaro iqad thumma sallim kadibna umul mu'minin Aisha marka la salaam hada waxa laga yaabaa maadaama aan noolahay inay si isaga xishootay waxaad marka la ku dhahdaa yasta'dinu Umar ibn al-Khattab yaani ku dhay marka le فإن أذنت لي فأدخلوني مركا أنا ميد هذي أقولاته مركا هلا يجري هلا يعصوا وإن ردتني هذي ده ما كان نقضينا ردوني إلى مقابر المسلمين قوة المسلمين تكرروا الوعظ الله يوعظ مركا إذا الله بعد إن الله قاضي مركو بنتك بعدي أو برشر هذا إن ما ضحى النول يعني أين أورك أيوة مركا دارمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه صدق لا قضى مركو قاضي وتأودم بشيء عن تلمعني مروان نفسه يعني نين يعني معه من تقنا كربديسي يعني إلهي فيدي أيوة نقطة kadib baa wuxuu bilaabay ummadan iyo mas'uuliyadeedii iyo wixii kala gudboon in uu gudbo talaabada koowaad marka ee ku soo xigtay waxay ahayd runtii cajiib ah qaabkii loo sameyn lahaa cid isaga bedeli lahayd ilaa dhakhaatiirtu waa cadeeyeen ninkan xaalkiisu inuu yani aad iyo aad u culus yahay Umar radiyallahu anhu warḍahay ka bilaawad malaynaysan talaabada koowaad ee uu bilaabay waxay ahayd أنا أقول إن لي هذا سهيب بن سنان الرومي ويري صلاة ضدك توتش إمام وإلا ما عابه إلا سجى إمام هزامه إمام نماذج والله إمام نماذج صلاة إمام نماذج مدح نماذج أنا قدر مدح نماذج أرجع واحد قال له اللي بيننا عرفته تكوز ده ربطه لكن يجا سيد ما هين يا لكن كوبادة ومقعد وحوها سهيب بن سنان الرومي وانين محان كل هذا منطقة أنا الله حشميه وضيئة يعني القرآن كسبوا نزول كيس قيبك كله ذات المسلمين تي يعني احترام يشدوا مسؤول هيان وحول مساجد كصلاة توكي سكم الجارة واربع صوص هذا كده إيمان دونا مركا كهرتاني كاسو مقعاوي مركي أهريسي أو محان كنا ميشيسي سوتشوتشي قلب كلا بعده وسميه وحوها إنه يسوي يري قوليه سي شورا
شورى عمر إمسا يعني مرحلة بيهي صدق بيت زماهين قولة كوبا سيركل كوباد يا هاين أبغى زمايزة يا العشرة المبشرون بالجنة العشرة المبشرون بالجنة ayaa ahay circle koobaad ee waxyaabaha yaani Umar degdeg ee maalinlaha uu baahan yahay inuu dhex dhigo oo maxaan sameeynaa saasay ahayd tobankii jannada loogu bishaareeyay ee nabiga sallallahu alayhi wasallam Umar uu dhihi jiray waxaan ogahay nabi maxamed inuu dhintay isagoo raali ka ah saasaan maxaan ku dhameeshan u keenay de sifaadka kale kuwa kale lagu dooran doonana way la wadaagaane oo kulligood maxaan ku dhahaa waa muhaajiriin oo kulligood maxaan ku dhahaa waa ahlu badr oo waa ila akhir inta kale waa yihiin yaa ka nool maanta يا maalintu isagu suuradadan sameeysanayay Abu Bakar baa ka maqnaa inta kale waa joogeen soo ma ahayn laakiin maanta imisa nool horta Abu Bakar waa tagay koow yaa kale tagay Abu Ubayda ibn al-Jarrah ana taa'un Amwas Sham yani waa kii ku baxay isaguna ku tagay isagii Umar ahaana waa kan yaala meesha yaa soo haray toddobadaas Umar wuxuu ka reebay nin la yiraahdo Sa'id ibn Zayd رضي الله تعالى عنه وارضاه وحول سعيد بن زيد كورتا كريبه لخذا كله ايود هلا يغو ييرو لخذا marka waxa weeyaan Uthman bin Affan Ali ibn Abi Talib عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله زبير بن عوام iyo سعد ابن أبي وقاص ninkii Ciraaq furay qadisiyay yani hogaaminayay Kuufa magaaladan la yiraahdo asaasay sameeyay waa ninka isaga ah lixdaas maxaan ku dhaamataa waa shuurada qaybteeda yarayda ayaa maxaan ku dhaa loo yeeray يا كحيجة يعني السيركل كان يا كحيجة كحيجة أهل بدر بارك الله فيك شيخ هذا أهل بدر بأمريكا معاهم كنا مرحلة الله بعد هاي تصدق هذا ودهم بسنة وحين نقول إيسا المهاجرون والأنصار تتكاسي مكساسي بكرش قلا هاي إن عمر مركز رضي الله عنه وارضاه قوله الشورى ذا مصغر كاها وهل من كسب قريبي أيوه محام كل هذا يده هلا يقول يارو مركز الله يرينا وحوسي تعلين يتلمان محدد وضح إنه كان جوابه برنامج كبار عندكيو ويسكو أديه wuxuu yiri waxaad sameeynaysan meel baad isugu tagaysaan lixdii naas waa koow waa tashanaysaan laab la kaciyo lama rabo markaad meesha ku tashanaysaan waxa idin la joogaya ninka la yiraahdo Abdullah ibn Umar waa wiilkiisa walaysa lahu min al-amri shay ay khilaafada shaqo kuma leeyahay laakiin meesha wuxuu u joogaa tiradu waa dhamme waa lix soomo lixdii hadii saddex la noqdo maxaa la sameeynay marka ibn Umar oo ka shaqadiisu wataas shaqadiisu waxa weeye inaad wixii tala ahana weydiisaan hadaa saddex noqotaanna isaga ayaa kala rajaxaya see u kala rajaxi wuxuu kala rajaxi waxaan ku taliyay khaliifahu saddexdaa laga soo dhex saaro labada saddexaad midood buu rajaxi nin kamid ma soo qabanayo waa garatay Soomaa yani saddex weeye markuu isagu aqligiisa Ilaahay la kaashado wuxuu leeyahay saddexdaas laga soo dhex saaro saddexdaas marka maxaan ku idhaahdaa noqonaya murashaxiinta rasmiga ee dambe kadib sirkalka loo gudbaya saasa marka Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu warda ayuu wuxuu yiri in la joogayaa mudada ay haystaan Umar wuxuu ku yiri la ya'ti al-yawm ar-rabi'u illa wa alaykum amir saddex maalmood baad haysataan oo wax walaaqdaan ku rogtaan laakiin saddex maalmood maalinta ya afradeen imanin iyadoo aan soo saarin ninkii khaliifaha ahaa ee ummadda maxaan ku dhaho hogaamin lahaa تداسو محان كنا متقناي بو هوش كسور ليه إن هديك ورن إن أي عبد الله بن عمر وهوش كوفي لان ويا الله دري عمر وحكو دري يعني تحدر أهيدو كله وحو يعني كنت لي وحو يري إن هدي عبد الله بن عمر تلذي سأذكرها للنقوم ويا إذا قنعون ويدو فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف يا ابن عمر تلذي سأذكر لقمة ويدو كوك عن صيدان labada saddexaad ee loo kala jabay qolada Cabdiraxmaan ibn Awf uu ku dhex jiro qolada maxaan ku dhahaa laga soo saaro khaliifaha wuxuu ku daray Umar wuxuu yiri fa ni'ma dhur ra'yi musaddadun rashid lahu min Allah hafiz fasma'u minhu subhanallah yani ammaan Umar uu qof ammaano yani taqriiban waa meesha u dambeysay way ee waan la tashan jiray Umar wad garanaysaa salaada hadda markii la tooriyay uu soo jiiday meesha keenan niri ibn Awf waana ku dhiiranay ibn Awf markii Umar yaa la hadli karaa la dhaho meelaha qaar kood isaga soo hadli jiray marka wuxuu yiri waa nin aad u tala wanaagsan
oo maxaan ku dhahaa mataqaanaayay la hago oo la toosiyo taladiisa oo rashiid ah xaq ilaahayna mid xifdiyo oo khalad ka ilaaliya ama gafka ayaaba kala jira wax ka maqlan ninka isaga marka waa tacliin xadidan oo meel looga baxlayn waqtiga waa la xadiday tirada waa la xadiday qaabka hadii la iskhilaaf loo kala baxayo waa la xadiday dhac Umar radiyallahu anhu warda qorshahaas ayuu maxaan ku dhahaa mataqaanaa nimanka u dhiibay markuu nimanka inta u dhiibay saddex talaabo cajiib ah ayaa ka dambaysa oo uu qaaday laakiin saddexda talaabo intaanan u gudbin aan soo galiyo halkaas dhacdo runtii aad u dhib badan oo timid adduunyadu maxaan ku dhahaa kama dhamaato yani ganta faruur waxaa jiray wiil uu dhalay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu warda oo Abdullah ka yaraa ninka maxaa dhihi jiray Ubaydullah ibn Umar adag buu ahaa in yani Soomaalidu waxay dhahdaa yani wiil wadaad iyo wiil wadaad ahayn bay dhahdaa yani Abdullah ibn Umar wadaad buu ahaa macna in cibaado badan oo taaca badan oo musaalim ah oo yani abi canaanto soo nin weyn marka adee ayuu ahaa laakiin Ubaydullah nin adag oo Umar meel badan ka shabaha ayuu ahaa laakiin toosan oo yani maxaan ku dhahaa mataqaanaa gaabsada markii Umar la dilay radiyallahu anhu dad badan oo muslimiinta aan la laayay warkii magaalada la isla dhex orday ninkana la garay wax dilay tooridi ku dilayna la arag nin un baa soo baday wuxuu yiri alla tooridan anaaba arkay Fayruz waa kan wax dilay iyo laba nin oo kale oo hayaan oo waliba meel gaar ah si gooni u taagan labada nin kala ma taqaanaan nin ka mid ah waa Hurmuzan waa ninkii tustur laga soo qabtay maxaan ku dhahaa mataqaanaa Madiina la keenay Umar loo keenay jiray yani Umar kaarteen jiray soo garmaysan ninka wuu muslimay asaga yaalihiisa si daahir ka ahayd wuu muslimay inuu muslim yahay baana loo yaqaanay magaalada saas ku deganaa arruur buu ku dhalay ninkaas maxaan ku dhahaa waa mid ninka labaadna waa nin Kirishtaan ah Jufayna la yiraahdaa waa yani adoon buu ahaa isaguna oo yani magaalada saas ku yimid Jufayna marka la dhihi jiray ninka isaga ninka marka hadalka soo sheegaya waa Cabdulrahman Abu Bakar Abdulrahman Abu Bakar wuxuu yiri anoo iska socdo baan soo juq soo iri Fayruz kan iyo Hurmuzan kadib wuxuu intaan la yaabay midida qaabka daranaysa sida ah nimanka iska kaftamay waan iska soo dhaafay nin kala isna marxaati furo yiri anna waan arkay inta haduu maqlay Ubaydullah ibn Umar go'aan hoosta ka gaadhay yani fatwo aan saxayna uu siiyay indan yara sheef buu qaatay xeeraysa warkan asaga xogsaday oo soo helay markuu soo oraaday taf waa dhaqaajiyay Hurmuzanku kan Fayruz kan gabadh u dhalay kan waxaan ka taqabay abululu ah gabadh oo gurigiisa joogta buu u tagay wuxuu yiri aabaha hawshan yaa kula jiray wallahi aan wax ma ogay wakaas bash horta gabadhu kaga bilaabay ninkii Hurmuzan ah bash san waa dilay Jufayna waa tagay bash waa qowracay isagii saddexdii waa isku maray intii Umar la kor taagnaa ay Umar hawshan ku jiray waxa la leeyahay magaalada waa la galay nin saaf wata dadkii laynaya intaas uu sii maraya برمد ورقبته دب ولا سو قبته الله عمر maxay muruku ahay Umar wuxuu yiri hadii Ilaahay caafiyo oo ka kaco ana u talin laakiin haddaan tago hadda deegool wax xukumi kara ma aha maxkamadayn karo dilan yahay marka wuxuu yiri hadii aan tagana wuxuu yiri khaliifaha ummadda soo loo soo saari doono farta ninka farta laga saaro inta ka horeysan la xidhnaado daarka la fuliyay ninka waa la jeebay waana la xidhay maxaan ku dhahaa ama Umar baa caafimaad doona ama ninka Umar ka dambeeyay u taala maxaan ku dhamaa taqaan hawsha waan arki doonaa insha Allah taala markaan gaadhno Amirul Mu'miniin Uthman radiyallahu anhu warda hawlii ugu horeeyay qabsaday bay ahayd dhacdada dhacday ma dhacdadana ku baraarujisay mise kolkii hore u qorshaysanayay Umar radiyallahu anhu warda saddex wareegtu soo saaray ta koobaad waxa weeye wuxuu u yeedhay in la yiraahdo Abu Talha al-Ansari Anas bin Malik khadimkii nabiga adeerkiisa garmaysan adeerkii yani hooyadii qayb aan uga jeedaa Abu Talha al-Ansari uu yeedhay kadibna wuxuu ku yiri inna Allaha a'azza al-islam bikum islaamka hadii Ilaahay ciizaynayay ree ansaareed baa Ilaahay ku ciizeeyay islaamka waxaad samaysaa faqtar 50 rajulan min al-ansar ya kontonin oo ree ansaareeda xulo hubeeyo maxaan ku dhaama taqaanaa qalab iyo hub qaata kadibna magaaladaas amnigeeda ilaaliya wadooyinkeeda yaa soo galay yaa dhaqaaqay wixii dhaqaajiya meel saar nimankan maxaan ku dhaama taqaanaa doorashada laga sugahayana dhaxsada ku taad maxaan ku dhaama taqaanaa marka wixii amni ah guutada saa u xil saaran Abu Talha al-Ansari uu hogaaminayo fastaxayta haula ar-rahat hatta yakhtaru rajulan minhum xilkoodu nimankan wuxuu ku egyahay markii la soo doorto khaliifo isaga hawsha qaadanaya haduu idin day shaqada haduu shaqo kale idin diriba laakiin inta ka horeysa hawsha iga filo taa wareegtada labaad waxa weeye Miqdad ibn al-Aswad Miqdad ibn Amr baa la yiraahdaa wad garanaysaan waa ninkii isaga iyo Zubayr baa waxa la dhihi jiray waa actually qol uu ku jiray hadda koraan soo marnay
qoladu ku jiray صح laakiin qolka waa ka muhiimsan baa jirtay gurmad nin dirsaday baa jiray kadibna Umar uu diray afar nin maxay u dhigmaan baa la yiri ninkii wuxuu dhigmaa kun ninkan ka mid kun buu dhigmaa ninkan nin ka mid waxa weeye waa Miqdaad ibn al-Aswad waa ninkan aan hayno yaa kale Ubayd ibn Samit Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu warda iyo Kharija ibn Mukhlad ninkan waa lagu sheegaa Baslama ibn Mukhlad mise Kharija ibn Hudafa labadaas la isku yaani ka faad lagu leedahay marka Miqdaad waa ninka kunka u dhigmo way Miqdaad Umar waa u yeeray asagii Zubayr baa marka si saaxiibo u ahaayo marar badan hawlaha la soo wada diri jiray marka Miqdaad ibn Aswad buu u yeeray kadibna wuxuu ku yiri waxaad sameeysaa adiguna soo qaada rag ku kaalmeeya wuxuu ila wadactumuni fi hufrati godkayga la ii qoday markii aan galo wuxuu yiri fajma' haula irhata fi baytin hatta yakhtaru rajulan minhum shaqada uu qabanay ninkan waa maxay lixdan yani shuurada laga rabo in khalifaha soo saaraan isaga mas'uulka ah guriga lagu shirayo lagu go'aanka lagu gaadhayo iyagu maxaan ku dhaama taqaanaay waa ma taala ninkan soo asayn gareynayo ko markay meesha galaanna cidda u tagaysa waa inuu maxaan ku horta cidda u tagtamo buu ogolaynba laakiin cidda dhahan noogu yeedhna wuu ugu yeedhayay cuntada iyo hawlahana wuu u geynayay fawdo inayna meesha ka dhicin wadadku intay dhagaha soo saartaan oo la dhageysto waxay ku doodo waxay ku murmaayaan magaalada war loo geeyo hebel baa la soo wadaa iyo hebel baa ismurmahayay iyo lama rabo waxaas marka ninkaana area mas'uulka ah nimankan meesha ku wardiyeynaya cidda noogu yeedhahan buu ugu yeedhayaa wakaas ninkana shaqadaas u taala waa si kala loo dhigay hadda waxaan loo yaqaano gudiga doorashooyinka ama security-ga doorashada ayuu maxaan ninkanna u qaabilsan yahay labadaan markuu shaqada uu kala aadiyay radiyallahu anhu warda wuxuu u yeeray mar kale ninkii la dhihi jiray Suhayb ibn Sanan ar-Rumi ninkii salaada lagu ogaa hadda marka waxa la siiyay tacliin xadidan oo waxa lagu yiri maxaan ku dhahay salli bin naasi thalathan imaamnimada waxay ku eg tahay saddex bari dadka salaada tukinaysa kawde wal yakhlu haula irhatu fi baytin jama'adan yani guri bay ku khaaliyoobayaan fa idha ijtama'u ala rajulin minhum ya hadii ay nin isku waafaqaan oo marka ay dhahan ninkaasaan u garanay ummadda hoggaankeeda faman khalafahum ninkii khilaafo dhaamaya anu ninkan aan rabaa fadribu ra'sahu hayna madaxa ka garaaca ya shan haday israacdo nin kamid ah dhaamay anu ma ogol ka alfa loo qaadaya haday iyagoo dhan oo ijmaac yimaadaan nin soo qaadaan ninkan nin kale marka meesha joogay u dhaamaya ninka soo qaadeen ku ka fiican baan anigu soo wadaa uu yiraahdo kaan alfa loo qaadaya sahih muslim ay ku taala nabiga sallallahu alayhi wa sallam man ataakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid idinku hal nin ku midaysano taladiinu midaysan tahay ninkii idin yimaada yuriidu an yashqa asaakum midnimadiina inuu kala jeexana marka isu diyaarinaya oo yufarriqa jamaa'atakum faqtuluhu nabiga ku taliye sallallahu alayhi wa sallam midnimada wax garanaysan ahamiyadda ay leedahay iyo hadii midnimada hal mar la kala jabiyo sida dib la isugu soo xidhi karin ya marka ninkaana talaas loo dhibay isagana salaadana imaam buu ka yahay imaamna waxa kale uu ka yahay يعني dadka shuurada ninka isku soo afgartaan asaga imaam ana mid kala hiya iyo maxaa la igu yeeri way aniga iyo warkaas xaga iska dhigaysa Amirul Mu'minin Umar radiyallahu anhu warda talooyinkii uu bixiyay inahaas ay ahaayeen kadibna waxa ku xigay dardaarankii inuu qoro waa sii jilcay dardaarankii uu qoray wuxuu qoray warqad meel walba ka heli kartaan hadda yani taala oo runtii hada kaligeed baa u baahan 2-3 muhaadaro dardaaran يعني muxuu ahaa mataqaanay nusxi ah ayuu qoray warqada markay waxay ku socotaan ninka ka dambeyn doona isaga inuu lama yaqaano laakiin ninka ka dambeeyo u qoray kula dardaarmay bilowgeeda kelimada kamid ah ayaa maxaan ku dhaar markuu yiri amma ba'du ayaa wuxuu ku yiri usiika bi taqwallahi wa usiika bil muhajirin wal ansari ya ila yani cabsida ilaahay ku dardaarmaya muhajirin wixii ka nool iyo ansaar wixii ka nool baan ku dardaarmaya فاقبل من محسنهم وتجاوز من مسيئهم هي وحي وناغه لا يمادان كقد وحي خلده maxaan ku dhaantaqana ka dhacana iska dhaafo maxaan ku dhaantaqana afi waxba ka soo qaaday yaa wuxuu ku daray Umar radiyallahu anhu warda wixii lagu lahaa waa guteen dadkaasi wax iyagu lahaayeen baa dhiman meelayaan meel kale kadibna maxaan ku dhaantaqana waa sii waday meel ka darmay waxa kamid ciidamada iyo rag hogaaminaya la soco yaan maxaan ku dhaantaqanaayay wax aan muhiim ahayn ciidamada loo adeegsanin halis muuqatanayaan la gelinin
ciidamada iyo naagahoodana yaan la kala yani muxuu mataqaanay goynin ha yani Umar waa kii xeer ka soo saaray sameeyna soo marin oo marka maxaan ku dhahaa mataqaanay aad balaayo u horseedaan muslimiinta inay xumaan faafto ama maxaan ku dhahaa xuquuq dayacanto arinta ay indhicin xuquuqda dadka reer baadiyaha ee muslimiinta reer baadiyaha abaariga waxba ku dhaca dadka in la ogaado dawladda qorshe ugu tala gasho wuxuu ka dardaarmay muxuu mataqaanay dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo in la maamulo dadka ahlu diimaha ee muslimka aan ahayn ee dawladdu mas'uul ka tahay ayuu iyagana si gaar ah uga dardaarmay yani سوء وذي عمر وحقوق بقبي رضي الله عنه وارضاه هذه وصيتي إليك وأشهد الله عليك تردارا كان كوقر وكاز إله بانكم مخراتك لي وأقرب عليك السلام لأنه يهلم يقان نكاس لكن ما مليح ذا متكمله ساس عمر دار كيسي أقري رضي الله عنه وارضاه وقد رنتي أستهشاء إن لا أخريه بل المحاضرات لقى قبطوغ لقى سوجيديو هي أستهشاء أنت كدب وحا اسكم بوقانيسي معلم أنت كدام بيسا إنه سي يعني جواب سي يوم حي لي إذا قلب كان عافمه dadka lagu qoodiyo aan la mahaynin wixii lagu shuban xaq kale ka sii daadanayay laakiin arin inaba hayartay argagax ku haysa ama ilagu siinaysa maxaan ku dhahaa ummadan iyo masaalixdeeda iyo mustaqbalkeeda ma ayna ahayn yaa geesnimada markay wax tarto way Soomaalidu maxay dhahdaan dad dhiman xataa la reerka wala iska duwa waa run waa sidan oo kale Umar waa dhimanaya sidii lagu dhiman lahayo dhan buu u yaalaa haddana wuxuu u tarinayaa sidii nin asagu dawladda maxaan ku dhahaa ilaashanaya xuduudaha asagu ilaashanaya u tarinaya maxaa yeelay يعني محوها متقناي و دي wax kala loo joogo in la dhinto marka ma ahayn ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wuxuu warinayaa wuxuu yiri Umar baan u soo galay maalmahaas yani uu meesha yaalay xaalkiisu si liidanayay markaas waxaan ku iri abshir bil janna ya amir al mu'minin ya janna ku bishaarayso أسلمت حين كفر الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض ولم يختلف في خلافتك اثنان وقتلت شهيدا فهم بضنا انتو أمان عمر لهابو هل كلمتك سوكوه وحقو إلي بالبشارة يسو وحاد مسلم تاي مرداتكو قالوا بيين وارون عمر دادها كهر ريان لكن مركو مسلمة يساقو قال لماذا حق لها يتسوى ما هين marka dad markay kufriyeen adu waad muslintay nabiga Allah jihad kala qayb qaato ka garab jihaaday marka dadku hoojiyeen garabkiisa ay ka baxeen rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam ayaa loo ofsaday isagoo raali ka ah waxa yar 10 kan uu kamid ahaa walam yakhtalif fi khilaafatika ithnan khilaafadaadi iyo madaxnimadaadina laba iskuma khilaafin Umar radiyallahu anhu warda wa qutiltu shahiidan maanta adoo shahiida ayaa lagu dilay bishaarayso xasan ku idhi buu yiri markaas wuxuu yiri in yar madaxa kor soo yar qaaday aid alayya warbaligu soo celi maxaa tiri markaas wuxuu ugu soo celiyay markaas wuxuu yiri wallahi alladhi la ilaha illa hu asal loo dhaarto ilaahay baan ku dhaartay alla kale sanjir xaq lagu caawin isaga ma ahane law anna li ma fil ardi min safra'a wa bayda'a laftaytu bihi min hawr al matla' hadan maanta anu milkii laha dhulka waxa ku yaalay lacag dahab iyo fidaa waan bixin lahaa waan isku furan lahaa waxa iga soo hor muuqanaya maxaan ku dhahaa mataqaanayay yani halistiisa daraadeed ayaan bixin lahaa marka nin isku halaynaya waxa sheegayso oo Allah ilaa waxa soo dhan baa ii horeeyay yani qofku marka inuu baqo wanaag kasta uu sameeyana uu baqo sida maxaan ku dhaman tahay bishaaraysan wiilka isaga ku yiri marka wiilka sida yiri Umar wuxuu yiri laytani yabna akhi wadhalika kafafan la liya la alayya wala liya hay in adeerow may arintu noqoto kafaaf yani inaan kala qabno waxa sheegay sidoo dhan inuu yani ifurto anigana marka maxaan ku leeyahay fakiyo Umar Xulay radiyallahu anhu warda la alayya wala liya yani anna waxba aan la istiinaynin anna waxba la ihaysanin ya sida ma noqoto sidaasan maxaan ku dhaman taqanay aan rabi lahaay waa kii marka wiilkiisa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu warda ba ugu dhawaa oo dhabta ku hayay dhihi jiray yani tawaadu iyo sidoo dhig daraadeed marka dadku amaanta waxa badbadiyaan wuxuu dhihi jiray wariidhig yani dhabanka ciidda idhig khud bi'adha khadim ala turab ama ala al-ardi dhabankayga dhulka ha qabtay dhulka idhig markaas uu dhihi jiray soo isku mid ma dhabtayda iyo dhulku warma ahe dhig saas marka maxaan ku dhaman dhihi jiray waxa cajiib ahayd wiilkaasi markuu Umar sidaa ku yiri isaguna ku yiri ma arintu noqoto kala rogasho aan waxba la isu raacin waxba la isasiinin ma noqoto dadka bixiya taxiga ama canshuurta hadda dhalinyarada iyo u badan ayaa maxaan ku dhahaa taqriiban tusaale loogu soo qaadan karaa xogaa lacag fiican bay shaqeeyeen markay canshuurta xareynayaan laba matalan ama u dhaxeeyaan ama saddex aan dhaho dawladdu inay ku dhahdo laxan lacag samaysay Soomaa reerna ma dhaqanaysid 5,000 soo celi ama inay ku dhahdo
warniyow shidaal iyo wax badan baa kaa baxay bal 2 kun iska qaado labada maxaa u dhaxeeya وكفاف ضمير شيء بقى وضحيه هو لا له ولا عليه يعني waxbana hakeeni waxana lagu soo doonan maayo Umar marka radiyallahu anhu wardaa wuxuu haday sidaan noqoto hada aakhiro janna yani maxaan iska diyaar moogtahay laakiin hadii daal lagu soo raacdo markaas way maxaan ku dhamatay marka hawshu ay xun tahay wiilkii marka sidaa ku yiri ayaa ismi jiirada baxay markuu sii baxayay buu isagoo sii baxayo isha ku dhuftay Umar wuxuu ii soo celi wiilkii soo qabta wiilka hada igu yeeray waa loo yeeray soo galay wiilkii Umar wuxuu ku yiri jabna akhi adeer irfa thawbaka marada aad qabtidee aan qowga ka hoosaysa kor u qaado fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik ya maradan aan qowga dhaaftay ee aad xidhan tahay kor u qaado maradaadana saasa u nadaafad badan rabbigaana taqwadiisu sidaas ku jirtaa ya marka nin dhimanaya oo macruufka faraya munkarkana reebaya wata sunnadii Umar dadka maanta in badan oo kamida markii shay macruuf loo sheego waa bas buufinayaan dadka waxay ku leeyihiin maxaad ka fiirinay inta yarta ah dib weyn oo kala jiray ma laga hadlo ya ciyaalkan hadda timaha baasada la baxay ya markii laga hadlo la dhaho war waxaani ma aha dhaqan muslim iyo dhaqan bani aadan aqbali kara midna ma aha war waxaan si hal la dhaho bal leeyahay sheekh way ba yimaadeen kuwa aan imaanin baa jira masaajidda moogta ma iska daysid kuwan ya falsafa shaydaan way kan imaaninna aan doonno kan joogana aan hagaajino soomo kii mara si xun u qabo waa in si hagaaji la dhaho kii tima xun wata war hagaaji waa in la dhaho kii maxaan ku dhahaa waan dareemayaa waalidka runtii mushkilada haysato oo yaani muxuu ahaa inuu cararo ka baqaya oo inta yaani kaga cararo ya laakiin waxaan isleeyahay haduu maxaan ku ilaahdaa si sax loogu sheego waxba carar maayo waa hagaajinaya biidilaahi tabaaraka wa tacaala yaani Umar radiyallahu anhu warda saacadaas afilay wariya maradan kor u qaado sidaas maradaadu daahir ku tahay oo ku nadiif badan saasaan rabbiga taqwadiisa ayay markaas sida ku jirtaa ajaa'ibta ayay kamid ahayd waxa la soo gaaray maalin arbaca ah bisha dhilhijjana marka ay tahay 7 iyo 20 ay tahay baa la soo gaaray Umar radiyallahu ta'ala anhu ardaa waa naf baxay isagoo marka da'diisu ay tahay 63 sano waana sanad 23 ee hijrada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxaan rabaa inaad soo saartaan intuu xukunka hayay inta yahay bisha Jamaadul Aakhir sanadka 13aad ee hijrada ayuu khilaafada qabtay sanadka 23aad dhilhijja oo dhamaada oo 3 bari ka dhiman tahay ayuuna geeriyooday meequu talinay 10 sano iyo 6 bilood iyo maalmo laakiin inta badan waxa la dhahaa 10 sano iyo badh ana sax 10 sano iyo badh buu hoggaanka hayay Umar radiyallahu anhu wardaa sidaas uu adduunka kaga faaruqay isagoo deyn 85 kun lagu leeyahay ayuu maxaan ku dhaca Umar geeriyooday radiyallahu ta'ala anhu wardaa da'dii nabigu ku dhintay sallallahu alayhi wa sallam ayuuna ku dhintay markuu dhintay Umar radiyallahu anhu wardaa waxa la soo qaaday meydkiisii kadibna waxa la dhigay meesha hadda inagu aan u naqaan rawdada ee aan la isku buurbuurto waa aragtay masaajidka nabiga sallallahu alayhi wa sallam yaani minbarkii nabiga sallallahu alayhi wa sallam ku khudbayn jiray hadda kor loo dheereeyay iyo guriga ay ku aasan yihiin nabiga iyo khulafadiisu meesha u dhaxaysa halka ayaa la dhigay meydkiisii halkaasaana marka maxaan ku dhahay lagu tukaday salaadii janaazada yaa imaamaha salaadii janaazada tukinayay exactly hada imaam baa jooga oo magacaabay Suhayb ibn Sinan ar-Rumi radiyallahu anhu wardaa ayaan laga daba hadlin oo imaamnimadiisa yaani salaadii janaazada hogaamiyay sidaas oo marka maxaan ku dhahay salaadii janaazada loogu tukaday kadibna guriga ku dhagan nabiga Abu Bakar ay ku aasnaayeen ayaa maxaan ku yiraahdaa loo qoday qabrigiisana waxa galay oo ilka dhigay wiilkiisa Abdullah ibn Umar Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ardaa Sa'id ibn Zayd oo ilma adeer ay ahaayeen iyo odaygii Suhayb ibn Sinan ar-Rumi ahaa imaamka hadda aan ka hadlaynay afartaas ayaa maxaan ku qabriga galeen oo qabriga dhigeen sida marka Umar u aasan yahay radiyallahu anhu ardaa iyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam aad wuxuu ugu hanaanay ka yaani waagaas iyada ahayd qolka uu nabigu deganaa Aisha qolkeena maktabada hadda kor waa ku miisaaliyay sidaan u hanaanay yahay يعني dhinacaan buu ka xigaa sidoo kale uu waaga ugu dhaganaayo mixraabka isugu dhawaanayeen isagoo marka isugu dhawaayeen hadii marka lagu dhaho qolkan ruux ku aas khiyaarkaagu uu xadidan yahay ruuxa marka la aasay xagee loo jeediyaa qiblada loo jeediyaa dhinacee loo dhigaa dhinaca midigta loo dhigaa Soomaha koonahan marka adeer Abu Bakar ka midigeeya
xaggan soo jira maktabada waxa ku jira ama ku aasan qabrigii nabiga sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr Siddiq marka radiyallahu anhu ardaa xagee la dhigay laba khiyaar nabiga lugihiisa in la dhigo oo qabrigiisu xaggan sugu nabiga ka qodan yahay asna xagga shisha laga qodo kuma filla isbiisku marka waa yariya qolku waa yaraa marka nabiga saa loo jiifiyay dhinaciisa kale xagga nabiga lugihiisa intii in qabri ku filan kama furna khiyaarka ku yaala waa inaad daba dhigto Soomaa ila nabiga xagga qibladu jira isna marka gadaashiisa la dhigo laakiin saxaabadu inay nabiga la simaan mayna samaynin Abu Bakar waxay dib bay u yar dhigeen qabrigiisa marka qabriga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa la dhihi karaa wuxuu soo saaran yahay darbigan dhow midka Abu Bakarna meesha darbiga kaga quman yahay wuu dib baa loo dhigay maadaama nabiga aan la sameeyay dib baa loo yar durjiyay haddii aan taqriiban soo dhaweeyo madaxa Abu Bakar iyo waxa isku beegmi kara qaarka dambe ee nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam Umar radiyallahu anhu ardaa sidaas oo kale baa Abu Bakar lagu sameeyay bimacna Abu Bakar gadaashiisa oo dhinacan ka xigta oo haddana yaani ka yar dambayso oo madaxa Umar uu ku aadayo qaarka dambe Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ardaa ayaa lagu aasay saasay markay isugu yaani ma ag wada aasan yihiin daasi kala u dhigo waxa weeye nabiga qabrigiisa waa ka sallallahu alayhi wa alihi wasallam Abu Bakrna halkaas asaa loo dhigay Umarna radiyallahu anhu ardaa halkaas sida loo dhigay kulligoodna qiblada u soo jeedaan waa faanteen ma malaynaya Soomaa hadda marka masaajidka tagtaan intaasan ka rabaa inaan soo dhaweeyay albaabba waxa laga bixiyay horta mixraabkii nabiga sallallahu alayhi wasallam wali wuu joogaa laakiin uu dheer yahay oo calaamadahan buu joogaa khudbadan mar baa lagu khudbeeyaa masaajidku laakiin horey buu u guuray oo hadda qolka ciyaalka aan ugu dhigno macadka iga dambeeyo oo kale ayaa masaajidka la geeyay ama ka fog halkan marka albaabba laga bixiyay dadku marka meeshan oo rawdadii ku aadan ilaa waxa u dhaxaysa rawdadu mixraabka muxarakab nabiga iyo gurigiisa u dhaxaysa Soomahayn markay rawdadan ay ku tukadaan albaabkaas ay ka baxayaan albaabka marka sida marka uga bixi rabto ee xaggan u jeedo hadaan u sii jeedo yaa ku wajigiisa aad ku aadan tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ku aadan tahay wajigiisa halkaas marka nabiga laga salaamo sallallahu alayhi wa sallam ya assalamu alayka ya rasuulallah wa rahmatullahi wa barakatuh ama saatiyaadka dhahdo oo kale assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh dadka idin baad arkay oo maxaa la dhaahada ku haya adiyada soo taqaanid inta aan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh kadibna laba talaabo waxbaad qaadi markaad laba talaabo amal qaado oo nabiga qaarkiisa dambe ku aadan tahay yaad wajigiisa ku aadan tahay Abu Bakar markaas salaamaysa assalamu alayka ya khalifata rasuulillah aw ya Abu Bakr Siddiq yaani maxaan radiyallahu anhu laba talaabo kala qaadaysa hadana waxaad ku beegan tahay Umar saasa marka inaad mar meel yar istaago saasa keenaysa taasan ka rabaa saasa marka Umar radiyallahu anhu ardaa meesha lagu aasay runtii qayb aan ugu talagalay fawaa'ida ayaa maxaan ku rabaa inaan yar boobsiyo laakiin inta aanan u gudbin taxan yaro degdeg laba su'aalood way waxaan soo marnay inuu Umar radiyallahu anhu ardaa imaam ka dhigay dadka sii tukiya nin la yiraahdo Suhayb ibn Rumi dadkii marka adduunka jooga markii Umar laga reebo waxa ugu fadli badnaa lixdan meesha ku xareeyay Soomaa iyo ninka uu ka reebay yaa ugu fadli badnaa lixdooda mid kamid ah dadka tuki muddo salaadaha kan iyagu salaadaha ay tukanayaan absolutely ha haduu Umar dhaho dadka salaada Uthman ha tukiyo markii salaadaha la gaaro haduu dhaho waa calaamad cadaynaysa inka inuu khalifa ka dhigay calaamad saaray waana sidii nabigu sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr Siddiq ku sameeyay nabigu sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr dadka ha tukiyo bas uu yiri laakiin muslimiintu waxay ka fahmeen maadaama diinkeeni uu ku aaminay adduunyadeena marka waa lagu aamini karaa saasay ka fahmeen Umar marka taas iska ilaalinaya radiyallahu ta'ala anhu ardaa saasoo imaam kale samaystay lixdoodiina ka reebay safka uu yiri dinku imaam noqon maysan iyagoo fadli badan marka waxaad ogaanaysaa ruux laga fadli badan yahay imaam uu noqon karaa kii ka fadli badnaa oo safka ku jira salada waa mas'alo su'aasha labaad waxa weeye aan weydiinayo markuu Umar yani 60 saxaabi uu yiri muslimiinta ma u taliyo soo doorta waxaan waqti ka nabiga inuu dhinto sawir haleedan ka ahee wuxuu ka reebay Saciid ibn Zayd oo soo tobanka jannada ugu bishaareeyay kamid ah wuxuu ka reebay ninkani wuxuu qaraabo la ahaa Umar laba meelood qaraabo kala ahaa mar waxa weeye ilma adeer bay ahaayeen marka labaadna seedigi buu ahaa walaashii buu qabay bal yani ilaahay markuu Umar islaaminayay
يعني سبب يعني قولي أنا أقول لك كان أوها سوغر ما يسان الشيء كان صامرني هدي مركا نكن لغو دارو يعني أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه تحدر يعني لديهن يعني عمر سيديقي ولالكي wax badan ka bartay oo waa jooga oo ka reebay gabigiisa markaas yani taxadarka Umar halka gaaray iyo maanta sida loo dhaqmaayo su'aal ma kala foga halala su'aal saddexaad aan ku daro oo muhiim ah su'aasha waxa weeye qaabkan uu Umar khaliifaha loo soo saaray yiri radiyallahu anhu arda yani mid kay waafaqsan tahay tii nabiga iyo tii Abu Bakr يا واسكو در هرتو طريقه عمر اللي في رضي الله عنه وارضاه روح انه كرييتيف يا دو في عنتهي لكن واسكو در لبديبو اسكو دراي مid buu ka soo saaray nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu dhimanayay muslimiinta cidna uma magacaabin Soomaa Umar nin uma magacaabin xaga waasas dhinaca kale waxa weeye Abu Bakr radiyallahu anhu wardaha nin buu magacaabay laakiin Umar muxuu magacaabay gudi ama gole soo saaran ninkan marka dhinaca inuu san qof cayimin nabigu kala mid yahay inuu dadkii umada u talin lahaa isagu maxaan ku dhahaa uu soo meel ku xareeyayna Abu Bakr buu kala marka waxana waa cayimay sidii Abu Bakr waxana ma cayimin sidii nabiga sallallahu alayhi wasallam labadii tariiqo oo marka combination la isku daray waa soo saaray barnaamijkan isaga hadii si kale loo dhigana waa tatbiiq lagu sameeyay quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri mu'miniinta haday tashadii laga hadlayay وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وكو تبا كتشدا يا تشاني marka dadku dhan tashada hadii la dhaho waxba hagaagi mahayo waa isku wareeraya Soomaa saasa Mareykanka waxa loo yiri gobolka la arkaa laba qof is soo diro konka sanadkii Soomaa marka waxa weeye shuuraagu marka waxa weeyaan dad wax garanaya waxana guuda waa inay tashadaan kadibna ay soo taliyaan marka aayadana waa noo fasiray Umar radiyallahu anhu wardaa qaabkii nabiga iyo qaabkii Abu Bakr waa soo ka ayad daray qaabkan uu soo saaray arrintaana waxa laga fahmayaa madax samaysashadu tawqiifi ma aha qoliya waxa sheega tawqiifi yani sida amba wax loo dooran kara ma aha waa dadka marka jooga wax garadkooda hadba sidii ay qof lagu soo dooran karayo waa shaqeynaysa hayeelay Abu Bakr baa si gaar ah maray oo nin magacaabay Umar baa si gaar ah maray siyaalo kale marka maxaan qoraa waa iman karaan markaas iyada noqonaysa oo markii de xalaal la yahay wax loo tashanayo qodobada marka aan rabo insha Allah taala fawaaid inaan dadka ka sheego waxa weeye عمر رضي الله عنه وارضاه geeridiisu muslimiinta waxay ugu dhacday ibn Abbas wuxuu leeyahay ما soo marin buu leeyahay bimala'in illa wahum yabkuna kaannahum faqadu abkar awladihim nin walba curadkiisi maanta inuu dhintay mooyo kale u maleeyay dadku weeyeen buu leeyahay culimadu waxay yiraahdeen ruux haduu intuu kugu xanuunsado oo la tacaasho marka ka dhinto iyo ruuxi hadda ku fayoobaa un qirif hadii laga siiyo isku xanuun ma soo xaqiiqo ma Umar marka nin soo jirraday oo soo waraaqay oo muunan ahayn waa mid labaad xagee lagu dilay masaajidkii hadana waxa lagu diray salaada dhexdeeda wax warigeed marka salaadii iyo masaajidkii iyo maxaan qura ninkii hadda fayooba iyo Umar kaligi lama dilin yani darsin dhan oo dad ah oo isla wada baxay iyo wiilkii yani haday sheegay Ubaydullah arintii si kala u sii walaaqay isagiina nooc marka muslimiinta waxa ku abuurmay runtii naxdina oo argagaxa oo aad iyo aad u xanuujiyay markii Umar lagu tukaday ee la qaadayay si qabriga loo geliyo Abdullah ibn Abbas wuxuu leeyahay garabkayga waxaan dareemay qof saayay cuskanayo oo yani muxuu ahaa markii salaada la tukaday yani qooraansanaya meydka meeshu ku jiray markaas aan wuxuu fiiriyay waxaan arkay Ali ibn Talib radiyallahu anhu warda hadal buu marka Ali yiri uu dheeray qaybtana kamida markuu Ilaahay u naxariistay yiri ayaa wuxuu yiri Ali ma khallaftu ahadan ahabba ilayya an alqa Allah bimithli amalihi minka Umar waa meyd markaas ya adduunka yani baaqi kuma aha oo ma joogo qof aan jeclaan lahaa amalkiisa oo kale Ilaahay inaan la hortago Umar gadaashi yani Umar amalkiisa oo kale yani Ilaahay yaa la hortaga waa xoodan baan isiri laakiin cid hadda aan isla Ilaahay amalkiisa oo Rabbi yaa la hortaga Umar oo ma ka tagin wuxuu ku daray waymullah Ilaahay baan ku dhaartay in kuntu la adunnu an yaj'alaka Allah ma'a saahibayka malaynaya in Ilaahay ku yeeli doono labadaadii saaxiib macooda Ilaahay inuu ku yeeli doono maxaa dhacay وإني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي عن إن بدن مغرب إسقوا لها ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر نبي صلى الله عليه وسلم لها
وان بحي وان تجي أنا يا أبو بكر يا عمر وان نمت أنا يا أبو بكر يا عمر وان بحي أنا يا أبو بكر يا عمر أي النبي كم قال صلى الله عليه وسلم marka maadaama nabigu saas ugu dari jiray in ilaahay macooda ka dhigo ayaan rajaynaya cali baa sida dhahay radiyallahu ta'ala xadiiska bukhari ku yaala sama garanaysaan sheekooyin kala soo socda marka aan ka hadli doonay horta inta si xajiya biidin ilaahi tabaaraka wa ta'ala qodob labada faa'iido waxa weeye ummul mu'miniina Aisha radiyallahu anha wa ardaha guri kala ma lahayn markii la aasay Umar dahabay ku xidhay qaybtii qubuurta qaybta marka dambe ee dhankaas ah ayaa meel yar oo sariir yar inta la dhigto saas baa u soo hadhay qaybta marka inta iska daahday ba halka deganeen هاي لا هاي كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي عشان أباهي يا نبي كو أسيهين يدو يتكو أسيهين كل يجي واسك سو جري تشري محان كنا من تقنا حجاب كي خمار كي حاجة كسر دكتي بس كده سعون جري وحتى فلما دفن عمر معهما فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي كل هدان سو جري وأنا سو أسطره وسو حجابته حياء من عمر أنا كحشون يا عمر قولي بجري وميت عايش وحيلة وان كحشون يا عمر أنا حجاب الآن أقول لك يا مركز أنا سوق له مركز حجابك لازم يسي قولي كذا يبنان كيس الله وضبط يا مركز عمر نيك وها يمشي وشوقي أيها كتصل إذا ميت تحت لقى حشون إيه قبل مسلمات كأمهات المؤمنين تتكع يا هاي رتي ميت حتى أنا كحشون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر يا عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حاجة مركز عمر تذكر دون في عنه عدالة إنه أها ميك شكيان يا الإمام كان ليدا هذا السيد حسين الموسوي كتاب قراءة الله ثم تاريخ ليدا هذا وحليه هي المجال اللي ليدا هذا كاشان وإيران كتالا وحال قسمي مشهد أما ميل يعني واحد اسمه الله تقانو يعني دبتشرك دحصون أما عرفت عند هذا الجندي المجهول ليدا هذا تالا كتالا لليه هي مجمع كقرنا وحالها مجمع مرقد باب شجاع الدين يا جيسي دينك يعني مكان ماشي لو عصيه تالدي سي ويريه waa booqda caamada shiicadu lacag bayna ku bixiyaan meesha siyada waxaana lagu sheekaynayaa waxa ku aasan ninkii Umar dilay ya Abu Lulat al-Majusi ayaa ku aasan baa la leeyahay oo lagu tawaafaya wasaaradda arrimaha diinta ee Iran ayaa waasicisay oo hagaajisay oo tabeeliyo taalo u samaysay halkaas aan la booqdaa markii la booqana shaqada ugu badan la qabanayo waa in Umar la naclado ninka dilayna la amaano la boombooniyo muslim buu ahaa laakiin ninka majuusi buu ahaa marka dadkan iyagu majuusi oo islaan horta ya mid kale ninkan Madiina lagu dilay ayaa isku asaga bay isdilay ciidamada dirin oo lagu aasay maxaa geeyay meeshaas iyada ya marka yani waxaad ogaanaysaa marka sida loo kala fog yahay iyo qadiyadu inayna ahayn ku dardarinayna wax waaqic ay tahay Iran taga soo arka meesha soo fiiriya doodeedana ka qayb gala wadaadadu waxyaabay sheegaan sidoo meedku meesha ku yimid qasraad ugu dhimanaysid marka qoladaana hawshoodaas iyaguna ku maqan yihiin Soomaalidu bariyaha waa u saacabeeyaan oo waa niman khatar ah way yiraahdaan marka halka qodob baan ku daynaya insha Allah ta'ala hada billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam